waxaan ka cabanayaa oo idhacay maxamuud cabdikariin gabayre ninka la leeyahay oo dhul iyo guriga madax u ah yiray guri iga dhacay iyo dukumiinti dhul leh. maxamuud cabdikariin gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa waxa ka cabanaya dad masaakiin ah oo ay ka mid yihiin agoon, naafo, haween iyo dad ah. Mr. Gabayre ayay dadkani ku eedeynayaan in uu ka boobay dhul ay ku lahaayeen degmada Kaaraan Soone Nacda oo u dhow isbitaalka Kaysanay. dhulkaasi dadkii lahaa waxa ay u haystaan dukumiintiyo sharci ah, waxaana dhulkaasi ay dawladdii Maxamed Siyaad Barre bixisay 1987 ilaa 1988. gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Mr. Gabayre waxa uu dhulkaasi ka barakiciyay dadkii deganaa isaga oo adeegsanaya awood ciidan sida ay cadeynayaan qaar ka mid ah dadka cabanaya. waxaan ka cabanayaa niman shirkad guri dhul iyo guri isku magacaabay madax uu u yahay nin la yiraahdo Maxamuud Cabdikariin Cali Gabayre dhul ay iga dhaceen oo iga boobeen dhulkaas oo ku yaala eeriyada Kaysanay cabirkiisu yahay koronta cabirkiisu yahay dawladii Maxamed Siyaad ay cabirtay 88 ayay si xooga iga dhaceen si xooga iga heestaan anaga agoon hanti aabay iga dhinto ilma agoon aniga u weynahay oo hanti aniga la ku jirto oo xoog iga qaato oo waliba ana fasax dhismaan u soo goostay oo ana dhisaay lameeri jingadeedii alwaxdeeda kala tuuro aniga qoray afka la geliyo bil xatay gacanta jilbil la igu sameeyay oo maxay ahayd nimankaas ay sheegana ciidamada dawladda maan waa ciidan oo nin leeyahay waa nin hantiila oo lacag leh oo magac Soomaaliyeed lacag ku cunaa anaga masaakiina oo maxay ahayd oo waxa aan rajo ku jiro oo maxay oo agoona oo dhoo indoola oo cuuriyamiin oo dhulkeen inta dhac oo leeyahay hadaan tagna la dila hadaan u tagnay dhaananiyo oo saan ma qabatan wuxuu yiri qofkii ii timaad hada la dilaba laba qofood waa lagu dilo qofna waa lagu dhaawacay. dadkan cabanaya waxa ay sheegeen in Gabayre ay dhowr jeer dacwado ka dhan ah u gudbiyeen maxkamadaha iyo garsoorka dalka iyadoo dacwadii u horeysay laga gudbiyay 2014 waxaana dacwadii labaad mar kale laga gudbiyay intii uu gudoomiyaha gobolka Banaadir ahaa Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale. dhammaantood waxa ay mareen wado cadaalad ka leexsan sida qaar ka mid ah dadkan ay cadeynayaan. Maxamuud Cabdikariin Gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed waxa uu isku dayay in uu dukumiintiyada saxda ah ka qaado qoysaskan isagoo adeegsanaya farsamooyin u gaar ah. Maxamuud Cabdikariin Gabayre gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed ayaa dhulka ay dadkani sharciga u haystaan ku xayndaabay darbi waxaana ku sugan askar gaar ah oo isaga ka amar qaata iyagoo ku tacadinaya cid kasta oo halka ka soo ag dhawaata. markay meesha cagafta ka bilaabeen baan u tagnay dukumiinkiina baan tusnay naga daayaan niri xoog bay noogu sheegteen ciidan bay la yimaadeen inaan hor istaagnaa damacnay dadkii kaaweenka qodanayay dadka meeshii tagay waa hor istaagnay ciidan baa naloo soo kireysay oo lacag la soo siiyay degan meesha la yiraahdo Gubadley dadkii xabad baa iskaga bilaabay 2 qof baa ku dhimatay inna waa ku dhaawacmay dadkii intii si kale waxay kala maalinkaas bad isku daadiyeen kala carreen waa la kala firxaday meeshana ciidan baa degay in aagi la tagana waa la diiday qof alla qof la arkay xabad baa lagu soo riday laga hor imaanaya intaas markay sameeyeen oo dadka ku laayeen oo meesha ciidan geysteen iyo darbi ku wareegsadeen dhulkii waa u xiran yahay waa dacwoonay oo saldhigga Kaaraan iyo degmada Kaaraan iyo guddiga khilaafaadka iyo gudoomiyihii hore oo Mungaab waa u tagnay cidna wax nooma qaban dhulkii ninka sidii buu ku dhistay oo baaqi ku yahay. maadaama ay dalka ka dhalatay dawlad shacabku kalsooni badan u muujiyeen waxa ay dadkani dib u soo nooleeyeen dacwadoodii iyaga oo raba inay helaan cadaalad u kala gar qaada iyaga iyo Gabayre. baaq ayayna u direen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. qof waxaan ku leeyahay soo dhacsanahay wixii oo xaqayga soo dhacsanahay qof naafaha qof indhoolaha ah qof waxaan ku dhisaraa cuuriyaan oo lugaha jiiska ah waxaan ka codsaa madaxweyne Farmaajo inuu wixii soo dhacsho shariicada diinta Islaamka oo amriga hadow yahay waxaan haloo soo dhacsho. dawladda sharafta leh madaxda Soomaaliyeed waxaan ka codsahaynaa xoolaha leeyahay iyo xoog uu leeyahay unku dad masaakiin ahaan inaan la ku hajuumin oo nala ka qabto ninkan cadawga ah oo masaakiinta cadawga ku ah oo cadkeeri dhinahay inuu cuno raba
in la ka qabtay saasaan codsanaynaa